بسم الله الرحمن الرحيم. halkan aan joogno bahda saxaafadda waa xarunta xisbiga wadajir. Said Cali Macalin Cabdulle dhinacay taagan waa xoogayaha guud ee xisbiga, anigana hogaamiyihiisaan ahay. halkan waxay ahayd meeshii noo ku soo weeraray ay dowladda ciidan ka socda, khaasatan ciidanka nabad sugidda ay nagu soo qaadeen goor habeenimo saq dhexe ah weerar aanan wax digniina wadan oo aanan wax aysan la soconin hordhaca. albaabka ayay nagu soo jebiyeen. wixii ugu horeeyay qabteenna waxay ahayd inay laayeen ilaaladii oo markaas aan kala daadsan oo aanan diyaarsanayn oo halkaa geeska aragtaan fadhiyey ayay laaysmo ku bilaabeen. kulligoodba way dileen, madaxa ayay xabad ugu wada dhufteen. ma qaadan arrintaas 3 daqiiqo wax ka badan. kabacdina waxay bilaabeen guriga inay madaaficda aragtaan ku garaacaan gaariyaal dhashiika ah, xabado, rasaas, jabshe, bamba isku jirta. nus saac ayuu weerarkaas isaga ah nagu socday. mar alaaliyey markii weerarka uu dhammaaday 5 ayaga ka mida oo naloo sheegay inay yihiin 5ta loo soo diray dadka gudaha ku jira inay dilaan. taasna waa ina aad ula socotaan. warka aan helnay waxaa waaye ciidanka ka wada qaatay howlgalka, qaarna waxaa loo sheegay in la soo qabanayo, qaarna waxay watay mission gaar ah oo annaga inayna qaarajiyaan ah. xogta aan helnay saas waa 5tii ka mida gudaha soo gashay. waxa kaliya ilaahay nooga badbaaday waxay tahay sargaal ayaga ka tirsan oo aanan hawshooda qayb ka ahayn oo markuu iridda soo gala halkaas darsada ku dhuuntay iyo taliyaashooda mid ka mid ah uunbay ku baraarugeen oo meesha taagan. kaas ayay ka noqdeen oonan hawsha shaqana ku lahayn oo la wadanin. tafaasiil intaas dheeri ahna waan bixi doonaa. waxa meesha ka dhacay marka waxay 30 daqiiqo ciidankeennii oo la laayay oo la dilay ayagoo fadhiya. kabacdi 30 daqiiqo xabad loo wada waxay ahayd in annagana la khaarijiyo. waxa loo ridaayay madaafiicda iyo dhashiikaha iyo jabshaha iyo bambadana waxay ahayd in la muujiyo meesha inay dagaal ka socdo ay tahay. sidaas daraaddeed annaga waxaan halkan ka caddaynaynaa in lagu soo qaaday weerar la doonayay in lagu qaarijiyo. mas-uuliyadda weerarkaasna waxaa iskale maxamed cabdulaahi farmaajo, qof kale u haysanna ma laha. waa naqaanaa wiilasha weerarka qayb galay, hadduu yahay midka gobolka nabad sugidda u haysta ama midka ku simaba intababa. ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo agaasimaha madaxtooyada intaba inay ahaayeen informed, ay daqiiqad ula socdeen oo ay khadka ku wada jireen. raadiyaasha la iska maqlay ciidanka nabad sugiddaan haynaa aynan ogaayeen, amarkaasna ay soo bixiyeen. taasna waxaa caddayn u ah in aysan haba yaraatee wax ka muujinin inay ka xanuunsan yihiin in ciidankii nabad sugidda dad lagu laayo. waxaa kaloo taa ka sii daran markay cadaaladii xukunta xaqdarrada inay weli sii leeyihiin, ay cadaadis ku hayaan cadaaladii oo ay leeyihiin arrintii ha la fuliyo, ha laga daba tago, oo ay garsoorkii madaxa bannaanaa weli cadaadis ay ku hayaan. waxaa kaloo caddayn u ah in ay weli canaananayaan saraakiishii ku fashilantay inaan isqaarajinno oo ilaa hadda la haysto ninkaas sargaalka gudaha sababta u soo galay aan loogu talagelin inuu soo galo. xogtooda dhan waa haynaa. hal midaan rabnaa inaan inii sheegno oo dadka Soomaaliyeed inu caddayno. wax allaale iyo wixiina soo gaara annaga haatan iyo kadib mas-uuliyaddeeda waxaa iskale maxamed cabdulaahi farmaajo. haddii ay waxna gaaraan dadka Soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa waxaa mas-uul ka ah maxamed cabdulaahi farmaajo. dhiiggeenna wixiina gaaro asagaa loo haystaa. taas waa intaas. midda labaad, askartii la laayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan ee difaacaya dalkan waxaa loo diiday. hadda waxaan ka soo baxay kulan aan leeyahay eheladoodii. waxaa loo diiday in la aaso, waxaa loo diiday in lagu dukado, waxaa loo diiday in la dhaqo oo dariiqii sharciga islaamka la marsiiyo. eheladii waxay noo sheegeen inay xarunta dambaaris CID ay tageen, loo diiday ilmahooda inay arkaan, ilmahoodiina inta laga qaado ayadoon la dhaqin meydkooda lagu dukanin hal god lagu wada shubay ayay noo sheegeen. waalid mid ka mid ah waalidiintooda sargaal ahaane lagu handaday in asaga lagu lixay doono 5tooda 6 looga dhigi doono hadduusan meesha ka tegin. waa arxan darro kale, waa dhaqan ku cusub Soomaaliya in askari xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan inta la dilo la diido xataa si rasmi iyo caadi oo dhaqankii islaamka iyo shariicada islaamka lagu aaso. waxaan kaloo halkan ka sheegaynaa qof allaali qofkii ka qayb qaadatay dhiirigelinta noocaana. waxaan maqlaynay ayaamihii la soo dhaafay, isbuucii la dhaafay, culummo wadooyinka la taagan, xildhibaanada ha la laayo, siyaasiyiinta guryaha loogu galo, ha la xasuuqo, culummo la taaganaan maqlaynay oo saabiicdii la soo dhaafo oo dhan. tan waxay daliil u tahay waxaana lagu laaynayaa inay fadwadoodii tahay. waxaan kaloo maqashiisannahay inay weli masaajida ka hadlayaan ayagoo doonaya inay sababeeyaan ama ay sax ka dhigaan wixiina lakula kacay. waxaan leenahay shabaabka ma duwadidiin.
halka qolo keliya ee dalkan joogtay haddaa ka ra'yi duwan tahay ku dilaysa waa shabaab qof kale oo Soomaali ah oo ra'yi ugu duwan tahay inta hub ku soo qaadata dhiigaada ku xalaalaysanaysa ma jirto annagu ciidan hubaysan ma nihin askar hubaysan ma haysano ma nihin dad dhufaysa dagaal ku jira ma nihin dad la yaqaano oo siyaasad dalkan ka soo shaqeeyay kaalmo waaweyn ka soo qabtay dibashiintiisa nabadgelyada dalkan wax ka keenay dawladnimada Soomaaliya inay gundhigto wax ka keenaan nahay waana la yaqaanaa doorashadan la qayb galnay maxamed cabdullaahi farmaajo ninka codkiisa weydiisto oo hay secondkii roundkii markii la marayay waji labaad doorashada iga bariyo codka inaan siiyo magaaladaana jooga xisbiyan gudoomiye ahay nin la yaqaanaan ahay ma hubaysni dagaalna kuma jirin haddii marka codkayga iyo dhaliisha aan u jeedinayo dawladda ay dhibtay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa laga rabaa dastuurka inuu baabi'iyo waxaa laga rabaa garsoorka inuu baabi'iyo waxaa laga rabaa dimuqraadiya lagu soo heshiiyey inuu baabi'iyo dalkana uu celiyo 90kii wixii ka horreeyay taasna shacabka Soomaaliyeed iyo intii dawladnimada Soomaaliyeed maal gashataan ka yeeli doonin intaas ayaan dhihi lahaa waa mahadsantii wixii su'aalana waa qaadayna mudane waxa jira hadallo baraha bulshada lagu baahiyay oo sheegaya in aad tiri Muqdisho oo caasimada dalka ah dad gaar ayaa iskale ama dad baa martaba maxaad u jaabaysaa waxaan u maleynaa waxyaalahaas waa been abuurkii ay weli daba joogaan dadkii naflacaariga ahaa ee dagaalka igu bilaabay markii hore sumcad dilka ah markii ku filnaaweysane ila yimid midkii tooska ah ila yimid magaalada Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed waxayna taas ka muuqataa Cabdiraxmaan Cabshuur dadka saaxiibada uu leeyahay dadka ay siyaasadda wadaagaan dadka ay isku dhow yihiin dadka taariikh wadaagi ay yihiin Soomaaliyeed dhanaa ku jira waligay nin qabiil ama deegaan inuu xigsado lagu tilmaamay waligay ma ahayn ama lagu eedeeyay Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed waa hadal ay meel yar inta ka soo jareen qayb kalena ayaga ku rakibeen iyadoo sakana dhameyn social media la wareegayeen waxaasna madaxtooyada laga soo abaabulaa sideedaba aflagaadadii hore iyo social media wixii ku hayo dhan iyo kanoo hadda waxaan annaga dhihin la rabo in qadiyadeena lagu qariyano halkaas laga soo abaabulay annaga waxaan aaminsanahay Muqdisho inay caasimad Soomaaliyeed tahay dadka Soomaaliyeed u dhaxayso magaalo cosmopolitan oo dadka Soomaaliyeed dhan qaada inay tahay loo simeeyaa xuquuqdeeda wax haba yaraatee ayna taasna weligii horaalayga maqlaha anoo leh wax ugu dhasho maahan waa maasantii hal su'aal la raacsan mudan adoor hali ah waxa jirtay intii aad xirnay in arintan odayaal iyo xildhibaano iyo wasiir ay galeen marka haddana maanta shirkaagan jiray wuxuu ku sheegtay in ilaa madaxweynaha dawladda ay ku soo duushay haddii ay suurtagal noqoto in arintan si hoos loo xaliyo oo waan ay ku dhamaato odayaashii xildhibaanada soo dhaweynaysa waa kala laba waxa aan sheegayna annaga waxaan u baahanahay ciddii duulaanka khaarijinta nagu soo qaaday oon hayno liiska xildhibaano kale iyo siyaasiyiin kale rabaan inay khaarijiyaan aan hayno dadkaas in maxkamadda iyo sharciga lala tiigsadaa loo baahan yahay kuwii fuliyey iyo kuwii soo amray intaba waxaa jiro inta rabaa inaan ka mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee soo gurmaday ee u soo halgamay ee u soo baxay kana xumaaday falka tacadiga iyo xumaanta nol kula kacay oo imaamku uu yahay odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ay ku jiraan kulligood aad iyo aad ugu mahad celinayna waxaan kale u mahad celinayaa xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee kala duwan ee qabiil kasta leh ee isku duumay arrintan u istaagayna waa u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa qof kasta madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhan oo kuwana statement ku soo saareen kuwana qaarkoodna ay meesha joogeen oo arrintan dadaal u galay waa arrin dadka Soomaaliyeed oo dhan kicisay waay nimankanu waxay soo qaadeen dagaal dawlad dumis ah dagaalka waxay ku bilaabeen dawlad goboleedyada waxay ku xijiyeen xildhibaanada waxay xabad ula tageen siyaasiyiintii waana waxaan kaga digi jirno ka waani jirin intaan la hadlaynin oon lahayn talada Soomaaliyeedba intaasay ka dhaxaysaa waxay ka dhaxaysaa xildhibaanada siyaasiyiinta maamul goboleedyada in talada dhexda aad dhigtaan oo la heshiisaan la rabaa waxaa soo baxday niman intii inay ka takhalusaan raba weerar inay ku qaadaan raba ayagoo isticmaalaya magaca dawladda waxaan halkan ka cadaynayaa Soomaaliya waxaa joogo 22,000 oo ciidan ajnabi ah waxay u joogaanna waxa waa inay Soomaali kala ilaaliyaan ay ahayd markaan ka soo kabsanay oo isku soo dhawaanay oo in yaroo shabaab oo qoray la ordaysa maana intii kale ay ogolaatay inay dastuur iyo dimuqraadiyad iyo sharci u kala baxdo ninka maanta doonaya dagaal sokeeye iyo colaad iyo xabad inuu u celiyo waa ninaan ogeyn waxa dalka laga soo maray waa ninaan ogeyn ajniyo nala jooga sababtay noola joogaan waa ninaan ogeyn waxa adduunka halkaan ka galaya sababtay u galayaan waa ninaan waxba ka warqabin waa nin mooga ah annagana dalkan kuma aamini karno cid mooga ah waa maasantiin waxaad sheegtay inaad dawladda aad haysaan caddayn ah in adigoo lagu yaqaano Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay dawladdu rabtay inay ku qaarijiso caddayntaad hayso waa nooc
caddayntan hay waa ficilka halkan ka dhacaya taaganta waa in 6 saac habeenimo askar ii soo gashay ii afduuban ciidanka nafsuubida ka tirsan 35 daqiiqo guriga xabad ku waday aniga in ay khaarijiyaan oo dilaan rabeen haddayna ayaga mishigisa u soo qaadeen oo saka halaabi lahayn taas wax caddayna uma baahna way caddahay haddii cabdiraxmaan dacwo loo qabo maalin cada xeeraalinta loogu yeeri lahaa warqada loo keeni lahaa waran maxkamadaha la soo qaada lahaa waxaas 6 saac habeenimo la isku miray oo wadooyinka muqdisho dhan loo xiray oo ciidan loo dhoobay cabdiraxmaan in la khaarijiyo un bay ahayd caddayntaas ka badanna ma jirto waxaa jirta in xeergaaliyada guud uu racfaan qaadanay haddii markaa warqad maxkamadeed lagu keeno ama garsoore ka timaada walow garsoor gudoomiyaha inkasta uu yiri maxkamadda racfaan lama qaadan karo haddii warqad lagu keeno lagu yiraahdo waxaa lagu qabaa dacwo arrintii la sii galaya ma aqbalaysa wax kasta oo sharciga ogol yahay waxaan anigu ku soo baxayna waa sharci afduubkii la ii geystay waxaan afduub u leeyahay wax sharciyo loogu waday ma jirin afduub iyo isku day dilaan ka baxsay ka bacin afduuba la ii geystay ma jirin maxkamad soo amartay in la xiro ma jirin xeeraalin uu wacdo warqad ii keentay ma jirin cid inay dacwo ii qabtay ii sheegtay 6 saac habeenimo bashiike iyo maafiic kurkeyga ka dhacayaan ka war helay anigu sharcigaan u taaganahay weligay nin sifiliyaan ah annagay saaxiibaday iyo xisbigeena waxaan ahayn dad dariiqa madaniya ama si ilbaxnimo ku doonaya isbedel siyaasi inay ku helaan kaasaan u taaganahay waxaan sharciga u tiigsanoo u diidnay xaalmarin iyo dhaqan iyo odayaal inkastay dadaal badan bixiyeen waxay ahayd in sharciga uu sareeyo dadka la baro sharciga inuu sareeyo laakiin waxaan ognahay in maxkamadii cadaadis lagu hayo oo gudoomiyaashii maxkamadaha heerar kala duwanaay cadaadis loo dul taagan yahay midaan inii sheegayaa sharciga aan la tiigsanayno xuquuqda wiilashii ay gumaadeen xasan cali khayri iyo maxamed cabdullaahi farmaajo maaha maxkamadaha dalka keliya dastuurka ii saamaxaya inaan maxkamadaha caalamigaana ka dacweeyo annagay ayagana meeshaan isku arki doono oon isku salaami doono oon dacwooyin ku kala qaadan doono waa fagaarayaasha maxkamadaha dalalka ay ka haystaan jinsiyadaha dhalashada waaye ma uga hari doono ilaa aan xaqeenna ka soo dhacsanno loo korbay 20 sanay socotay 20 kiian daba taagnaanayna hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsantihiin